الله naxariista waxa shalay lagu aasay qabuuraha muslimiinta magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika saxafi Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Zakariya Ibrahim oo ku magac dheeraan jiray Zaki iyadoo ay aaskiisa ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika dilka loo geystay wariyahani ayaa yimid kadib markii ay damaaciyeen gaarigiisii kooxa burcad oo ay cirsanayeen ciidamada ilaalada wadooyinka magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika kuwaas oo uu ka dhaga adeegay wariye Zaki dabadeedna ay rasaastu u dhintay ku fureen burcadaas ee la baxsadeen gaarigii uu watay marxuumkan dhintay wariye Zaki oo magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika loogu sameeyay aasitaan balaaran ayaa waxa culimadii ka hadlay aaskaasi kamid ahaa Sheekh Maxamed Akhyaar oo isagu ku tilmaamay dilka wariye Zaki inuu yahay xaq darro ah wuxuuna taasitii raayaan la u diray dhammaan eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday marxuumka intii lagu guda jiray aaska sheekhu waxa uu aad ugu dheeraaday uu ku baraarujiyay dhalinyaradii goobta timid in geeridu ay xaq tahay waxaan halkan aan uga tacsiyeenayaa geeridii aad u xanuunka badnayd ee ku timid walaalkeen Zakariya wuxuu kamid ahaa dhalinyarada South Africa ragga aad looga yaqaanay firfircoon haddana waxaa dishay gacan ka xaq daran kulli aniga iyo culimo kale waxaan ku tilmaanay geeridaas inuu yahay man qutila doona maalihi fa huwa shahiid inuu nin shahiid yahay Zakariya haddana jaaliyada Koonfur Afrika ku dhaqan aad iyo aad baan uga xunahay geeridaas waanan u tacsiyeen eeladiisa iyo dhalinyarada walaalaha iyo saaxiibada ay ku ahaayeen wadankan kadib walaalaha kale ee Koonfur Afrika aaska yimid waxaan ku baraarujinayaa xadiiska nabi alayhi salaatu wasalaam ida walacatil janaaizada haddaad naxashka dhigtaan waxtamalaha naas ragga ay xambaaraan hadday tahay mid wanaagsan waxay dhahaysaa i hormariya ilaa anna waxay dhaalacatay makaanka ay ku leedahay jannada ilaahay hadday mid aan wanaagsanayn hadday tahay waxay dhahaysaa ayna tadhabuun yaa waylati hoogayga ayna tadhabuun xageedii wadaan biha كل شيء يسمع إلا الإنسان إنسان كموينة دتك كلو دن waxa kalo dhan way maqlayaan insaanka waxa laga wadaa faqalaynka jinki iyo insiga inaga walaalayaal geeridaas waa lama huraan nin kasta way ku imaanaysaa inteenay nagu imaanin aan ilaahay ka baqno meel aan joognaba wabillahi tawfiiq dilkani loo geystay wariye Zaki ayaa qayb ka ah dilalka had iyo jeer lagu la kaco muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika waxaana sii kordhaya maalinta ka dambaysa wajiyo cusubna dilalka iyo gumaadka loo geysto dadka Soomaaliyeed ee ka xoogsada dalkani Koonfur Afrika horaantii toddobaadkani ayaa waxa ayana lagu dilay duleedka magaalada Port Elizabeth ee gobolka Eastern Cape ee dalkani Koonfur Afrika laba nin oo muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo mid kamid ah dilkiisu uu ahaa mid qorsheysan sida ay xaqiijiyeen dadkii ka agdhawaa si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay ee suxufi Soomaaliyeed lagu dilo dalkani Koonfur Afrika waxaana dhacdadani aad uga xumaaday dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkani Koonfur Afrika Cabdinaasir Soomaali Universal TV Johannesburg